dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen allawdow Somaliland dhaliniya waayeel dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen allawdow ودرارتي لنتاجي ندبي على كيني دلانكينو نبض كسد ودرارتي لنتاجي ندبي على كيني دلانكينو نبض كسد وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكيس عياها وطني يدبكى العدول وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكيس عياها وطني يدبكى العدول Somaliland العدول فرح محمد فارح وين الجميع الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنتوا تاريخ ضحايا تطبيق طبعاً ماي كونيو قبيلة باطن وحافر حد رؤى إلى نكسر دوينا هالكن وفد بلارن وشرف له وكصعدا دولة إنه وراها النهاية جيبوتي وفد جاس ووفد ويمي إلى كقريب جران مناسبة سديد يوتبان كمي نصدق جوردا كسور كتي قبل مدة إنه لا صار نقطة جمهورية سوماليلاند لا صار نقطة حرية دي wafdigaas oo ka kooban 11 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Djibouti ay u hayaan xukuumadda iyo shacbiga Djibouti ay u hayaan jamhuuriyadda Somaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa una qiimeynaynaa una qadarinaynaa wafdigan walaalaha aynu nahay ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18 May waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada wadankiinii labaad gurigiinii labaad caasimaddiinii labaad ee Hargeysa ee Somaliland waxa hogaaminaya wafdigan xogayaha guud ee ra'iisul wasaaraha Djibouti mudane Nagiib Abdallah Kamil oo ayaa wafdiga hogaaminaya isagaan ku soo wareejinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweystan la soo dhaweeyay dhulkeenii labaad ee Somaliland oo aanu nimidnay xafladaasi sanad guuraha 18 May jamhuuriyadda Somaliland oo ka qayb gali doona hadii la yiraahdo Britole waxa weeyaan laba dal walaala yaan nahay inaan nimaadno waajib bay nagu ahayd madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelaan soo diray invitation ka madaxweyne Muuse Biixi ayaan ku nimidnay walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidno kala hadhama jirto odayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada weyn soo dhaweeyeen markaasi aad baad u mahadsantihiin dhulkeenii waxaan nimidnay labaad